وانid salaam saaxiibayaal ku soo dhawaada Somali Recap maanta waxaan sharxi doonaa filin aad iyo aad u xiiso badan kaasoo lagu magacaabo Trabid haddaba waa kan filinkiye daawo oo taxadarna Shuriya waa shaqaale kaasoo ka shaqeeya xarunta wicitaanka wuxuuna ku nool yahay Mumbai waxaana la dhacsan yahay gabadh ay wada shaqeeyaan taasoo lagu magacaabo Nuuri maalin maalmaha kamida wuxuu iska baarayaa geesinimo si uu u wacayada laakiin waxa uu ka xishoonayaa inuu muujiyo dareenkiisa balse laga bilaabo maalintaas wuxuu u wacayaa si joogto ah dhan kale Nuuri waxay u muuqataa inay ku faraxsan tahay wicitaankiisa tirada badan ayna jeceshay inuu mar walba la hadlo isna wuxuu ka xishoonayaa inuu weydiiyo dareenkeeda maalinta dambe waxay ku xijeynaysaa marka uu soo waco inuu ku qiyaaso cuntada ay jeceshahay 5 sakin gudahood hadduu si sax ah u qiyaaso way la sii socon doontaa isaga laakiin hadduu khaldo way joojinaysaa inay telefoonka ka qabato inkasta uu ku dhibaatoonayo ugu dambeyntii si sax ah ayuu u qiyaasayaa habeennimadii waxay aadayeen cuntooyinka wadada lagu gado waxayna soo cunayaan marka cuntadii ay xiiseynayeen muddo kadib maqaayad ayay wada fadhiyaan waxayna ka wada hadlayaan waxyaabo ku saabsan iyaga kadib Nuuri ayaa u sheegaysa in la guursan doono iyada 2 bilood kadib Shuriya isagoo ereygaas la yaaban wuxuu weydiinayaa in guurkeeda ay iyadu ka dambayso iyo in waalidkeed ay ka dambeeyaan marka ay u sheegto inay iyadu ka dambayso ay sii wadayaan wada hadalkoodii caadiga ahaa isagoo mowduucan gibi ahaanba iska indhatiraya maalintaas waxay astaan u noqonaysaa bilowga saaxiibtinimadooda intaa kadib Nuuri waxay bilowday inay rajayso inay la kulanto Shuriya waxayna dhibsanaysaa shaqada uu kaga mashquulsan yahay iyada dhowr maalmood ay wada gelayaan safaro gaagaaban kadibna ay bilaabayaan inay jacayl isu qaadaan maalin maalmaha kamida wuxuu keenayaa gurigiisa kaasoo uu la degan yahay 3 kamid ah asxaabtiisa qolkiisa ay isku soo xireen kadibna waxay bilaabeen inay sameeyaan intaa kadib Nuuri ayaa si lama filaan uga istaagaysa oo u diidaysa ficilkaas inay sameeyaan waxayna u sheegtay inay ka fikiraan mustaqbalkooda Shuriyana wuxuu weydiistay inay baajiso arooska oo isaga ay la midowdo marka hore waxay mooday inuu la kaftamayo laakiin waxay bilowday inay tixgeliso hadalkiisa markuu ku adkaystay kadibna waxay u sheegaysaa inaysan kula noolaan karin gurigan oo asxaabtiisa la degan yahay intaa kadib wuxuu u ballan qaadayaa inuu u soo kireen doono guri cidlo ah lana degi doono laga bilaabo biriba arooskeeda waxaa ka dhiman 2 bilood oo kaliya si ay taa u sameeyaan waa inay si dhaqso ah u qabtaan wax kasta markii ay tagto Shuriya wuxuu wacayaa dhowr qof oo markaa guryaha kireeya si uu raadiyo guri markaa ku haboon isaga si kastaba ahaatee waqtiga iyo qarashka oo ku yar awgeed maalintaas guriga hore uma helayo wuxuuna maalintaas oo dhan baarayaa guri markaa isaga u qalmaa isagoo ku guda jira mid kamid ah wada hadallada dalbiyadiisa waxaa dhageysanaya qof kadibna qofkii wuxuu soo cararayaa xaggiisa isagoo u sheegaya inuu hayo guri markaa isaga ku haboon Shuriya ugu horreyn uu ka yar shakiyaa laakiin ugu dambeyntii wuu aqbalayaa waxayna imaanayaan guriga si markaa ay u eegaan waxaana la keenay guri dabaqa oo dheer oo dhawaan la dhisay kaasoo u muuqda inuu ka qaalisan yahay inta uu awoodo inuu bixiyo waxaana loo sheegay in dabaqan la dhisay 2 sano ka hor laakiin cidina ma deganaa sababtoo ah dhismaha qayb kamid ah ayaa markaa weli la wadaa oo aan la dhamayn mulkiilihii gurigaas ka lahaana weligii muusan imaan ninka isaga meesha keenana waa mid kamid ah markaa ilaaliyaha dabaqan mar haddii ninkii meesha iska lahaa uusan imaan 2 sano si sharci darro ayuu ugu dhiibayaa laaluush lamaanahan ayaa noqonaya dadka kaliya ku nool dhismahan Shuriyana kuma qancayo gurigan cidlada inuu dego laakiin markuu indhaynayo wuxuu ilaawayaa dhammaan waxa sharci darrada ee gurigan ku saabsan iyo sidoo kale cidladaba wuxuuna gurigan ka kooban yahay qol jiif jiko meel lagu nasto musqul iyo balkoon dheer leh meeshuna si aad ah ay markaa ugu qalantaa qiimaha markaa uu bixinayo isagu wuxuuna dhamaystirayaa heshiiska oo uu helayaa markaa furayaasha meesha intaa kadib wuxuu boorsadiisa ka soo qaadanayaa gurigiisii laakiin asxaabtiisa uma sheegayo qorshihiisa cusub wuxuuna si fudud ugu sheegayaa inuu baxayo safar gaaban gurigiisa cusub ayuu firaash soo dhiganayaa sidoo kale uu nadiifinayaa wuuna seexanayaa habeenka isagoo raba inuu kadiis uga dhigo Nuuri maalinta xigta balse waa maalinta ay u bilaamayso jabkiisu inta uusan seexan telefoonkiisa ayuu gelinayaa chargerka balse korontada oo dhan ayaa tegaysa subaxnimadii uu toosay isagoo daahsan si degdeg ah ayuuna u samaynayaa hawlihiisa subaxnimo wuxuuna ogaanayaa inaysan qasabadu aysan midna shaqaynayn wuxuuna isticmaalayaa caag yar oo biyo ku jiraan si markaa ugu cadaydo daqiiqado kadib wuu baxayaa wuxuuna xirayaa guriga si kastaba ahaatee waa inuu mar kale gudaha ku soo laabto si markaa uu soo qaato telefoonkiisa uu ilaaway nasiib darro wuxuu ilaaway inuu furaha ka saaro albaabkiina si kama ayuu markaa isu xidhayaa Nuuri ayuu wacayaa isagoo u sheegaya inuu in yar kadib u imaanayo balse waa sida uu isagu u malaynayo oo kaliya markuu wicitaanku dhamaado wuxuu bilaabayaa inuu baxo wuxuuna ogaanayaa inuu dhibaato ku sugan yahay wuxuu si xoog leh isugu dayayaa inuu furo qufulka wuuna ku guuldareysanayaa wuxuuna helayaa qaar kamid ah qalabyada lagu furo albaabka wuuna isticmaalayaa laakiin albaabka furayaasha la'aantood ma furmo intaa kadib wuxuu wacayaa qaybta caawinta isagoo weydiisanaya inay u soo diraan qof jabiye markaa qufulka albaabka laakiin nasiib darro telefoonka ayaa ka damaya ka hor inta uusan u sheegin ciwaanka guriga wuxuuna isku dayayaa inuu mar kale charge gareeyo telefoonka laakiin korontada oo maqan awgeed suurtagal ma ahan Shuriya aad ayuu markaa u xanaaqay wuxuuna bilaabay inuu garaaco albaabka
waxaana intaa dheer inuu ka dhaawacmayo gacanta inta uu ku guda jiro albaabka jibintiisa. in yar kadib wuxuu imaanayaa balakoonka oo uu qaylinaya markaa waardiyaha, laakiin nasiib darro ma maqlayo waardiyuhu sababtoo ah sawaxanka gawaarida iyo sidoo kale meesha uu joogo oo dheer ayuusan u maqlaynin codkiisa. intaa kadib wuxuu rumaysanayaa inuu ku xayiran yahay qolkan dhexdiisa. qorshihiisa ah inuu Nuuri guursadana uu ku guuldaraystay sababtoo ah Nuuri waxay ka fakaraysaa inuu Shuuri ka baxsaday inuu iyada mas'uuliyaddeeda qaado. waxaana nabarka ku nadiifinayaa biyo yar oo ku hadhay caagadda isagoo rajaynaya inuu telefoonkiisa dabka geliyo. mar kale wuxuu baytariga dhigayaa qorraxda isagoo rajaynaya inuu kululaado, balse waxba ma dhacayaan. intaas kadib wuu qaylinayaa isagoo leh i caawiya. saacado badan ayaa dhaafaya laakiin qofna ma maqlaya isaga. habeennimadii hal xabbo buskuda ayuu cunayaa wuuna seexanayaa. subaxii dambe markuu soo toosay korontadii weli way maqan tahay, qasabaduuna ma shaqaynayaan. haddana mar kale ayuu isku dayaa inuu albaabka furo, wuxuuna la dhacayaa wax kastoo guriga dhexdiisa yaalay. Shuuriya hadda wuxuu diyaar u yahay inuu qaado tallaabooyin xad-dhaafa si markaa bannaanka uu ugu baxo. TV-ga gidaarka ku xiran ayuu soo fujinayaa kadibna wuxuu kusoo tuurayaa balakoonka. dhulka ayuuna kusoo dhacayaa isagoo markaa burburay, laakiin ilaaliyuhu weli ma dareemayo waxba. wuxuuna iska cunayaa buskudkiisa isagoo kasoo kacaya in yar oo markaa uu biyo u waayey. isagoo qorshe damacsan wuxuu kabadhka dushiisa kasoo qaadayaa dhowr kartoon. isagoo isticmaalaya daawada lagu cadaydo wuxuu ku qorayaa helbi iyo dhismaha uu ku sugan yahay numbarkiisa si markaa loogu yimaado. nasiib darro kartoonka ayaa ku dhacaya mid ka mid a guryaha ka hooseeya saqafkiisa. Shuuriya weli ma uusan rajo dhigin, wuxuuna samaynayaa baakad kale. taasina waxay ku duldhacaysaa saqaf kale oo dhismo ah. marka ay dhammaato daawada cadaygu wuxuu isticmaalayaa dhiiggiisa si uu fariin kale ugu qoro. wuxuuna balakoonka kusoo tuurayaa 2 kartoon oo kale. mid ka mid a ayaa si toosa ugu dhacaysa dhismaha hoostiisa, halka midda kale ay ku dhacayso guri barxaddiisa. balakoonka ayuu istaagayaa wuxuuna sugayaa inuu qof helo fariintiisa uu soo raadiyo. markaa fiidkii gabadh ayaa timid guriga daaraddiisa si ay u soo qaadato dhar markaa meesha ugu wadhnaa. Shuuriya ayaa kacaya wuxuuna bilaabayaa inuu qayliyo, laakiin wuu niyad jabayaa marka gabadhu garan weydo meesha ay baakaddu uga timid. habeennimadii wuxuu aadayaa jikada wuxuuna ogaanayaa inay ka dhammaatay cuntadii. wuxuuna arkayaa jiir kaasoo ka naxsaday, isagoo ka cararaya wuxuu madaxa ku dhufanayaa gidaarka wuuna suuxayaa. subaxii dambe wuxuu kasoo toosayaa guriga sagxaddiisa oo ah meeshii markaa xalay uu ku suuxay. wuxuuna arkayaa in qasabadda guriga ay shaqaynayso, ay biyihiina soo laabteen, laakiin aad ayuu uga cabsanayaa inuu gudaha galo jiirka awgii. in yar kadib biyaha ayaa go'aya mar kale wuuna niyad jabayaa. wuxuuna isku dayaa inuu hagaajiyo muraayadihiisa indhaha oo xalay ka jabay markuu ka cararayay jiirka. isku day kale ayuu samaynayaa balse qof kale markaa uu arko. wuxuuna samaynayaa qalabka ciyaalka ku ciyaaraan si uu dhagax ugu tuuro haweenay hoostiisa taagnayd. dhagaxu wuxuu soo jiidanayaa haweeneyda iyadoo baadhaysa cidda markaa kusoo tuurtay dhagaxa. ugu dambayntiina waa iska indhitiraysaa maadaama aysan arkaynin cidda markaa dhagaxa kusoo tuurtay. maalin kale ayaa saa ku dhaaftay. habeennimadii wuxuu isticmaalayaa dharkiisa si uu helbi ugu qoro biraha balakoonka. kadibna wuxuu bilaabayaa inuu biraha ku garaaco shay yar ilaa subaxii, laakiin nasiib darro cid maqlaysa ma jirto isaga. waardiyaha ayaa ugu dambayntii helaya markaa kartoonkii uu soo tuuray, laakiin nasiib darro waardiyuhu waa mid aan waxba akhrin, sidaa darteed wuu iska indhatirayaa. dhan kale gabadhii guriga u dhoweyd ayaa helaysa kartoonkii uu soo tuuray, waxayna eegaysaa hareeraha laakiin ma arki karta isaga maadaama meel ka dheer uu saaran yahay. wuxuuna leeyahay caawi isagoo isku dayay inay xaggiisa soo fiiriso. kadibna wuxuu aad ugu farxayaa markuu arko inay dhismaha soo gashay. waxayna waardiyaha u sheegaysaa in cid halkaas ay joogto caawimaad u baahan, laakiin ninka waardiyaha wuxuu gabadha u sheegayaa inuu halkan joogay muddo 2 sano ah, aysan cidina ku jirin dhismahan. gabadhu weli kuma qanacsana jawaabta waardiyaha, waxayna kor u soo fuulaysaa dhowr dabaq. si kastaba ahaatee meesha oo madhan iyo shanqar la'aan awgeed ayay isaga soo laabanaysaa. Shuuriya wuxuu arkayaa inay iska noqotay wuuna rajo dhigayaa markay habeen noqoto wuxuu gubayaa dharkii uu balakoonka suray. marka meesha dhani ay olosho uusan welina wax natiijo ahayn wuxuu gubayaa sidoo kale furaashkiisii. si kastaba ahaatee qorshuhu wuxuu xumaanayaa marka dabku wada gaaro sariirta iyo sidoo kale guriga oo dhan. wuxuuna isku dayaa inuu ku dameeyo jaakadiisa. intaa kadib wuu seexanayaa gaajo awgeed, wuxuuna ku riyoonayaa cuntooyinkiisii uu jeclaa markuu la socday markaa saaxiibadiis. wuxuuna kaloo soo xasuusanayaa filimaantii uu xiisayn jiray ee salfeefarka ahaa, kuwaasoo tusinaya ama baraya in qofku cuno wax kasta uu helo marka uu meel cidlaa ku gaajoodo. isagoo taladaas qaadanaya wuxuu tegayaa jikada si markaa jiirka uu dilo, laakiin wuu ka baqayaa marka uu jiirku xaggiisa soo aado. maalinta xigtay harad ayaa markaa u sii siyaadaya, wuxuuna weel u dhiganayaa biyaha suuliga isagoo markaa aan jeclaysanayn ayuu cabbayaa. dhadhanka biyaha ayaa ku sababaya inuu matago. maalintaasoo dhan wuxuu isku dirqiyaa ama isku khasbayaa inuu seexdo. subaxii dambe ayuu soo toosayaa isagoo roob da'ayo, wuxuuna si degdega ugu dhiganayaa weelka kadibna uu cabbayaa. wuxuuna isticmaalayaa weel kasta oo guriga yaala si uu biyo ugu kaydsado. subaxii dambe wuxuu arkayaa shimbir ku degtay balakoonka, waana fursaddiisa keliya uu haysto. wuxuuna isticmaalayaa qalabka toogashada si markaa uu u dilo una cuno.
si kastaba ha ahaatee markuu damco inuu maqaarka ka saaro ayuu dhibsanayaa, wuxuuna soo xasuusanayaa waqtiyadii isaga iyo Nuuri ay tegi jireen hoteelka, kaasoo ahaa mid keliya cuna khudradda, hadii jeerna markaa ku andacooda in xayawaanka oo loo laayo cunto ahaan ay tahay markaa mid xaqdarro ah. isagoo aan rabin shimbirta ayuu haddana madaxa ka goynayaa oo uu dubanayaa. intaas kadib wuxuu ka adkaanayaa cabsidii uu ka qabay jiirka, wuxuuna ku guulaystay inuu dabin u dhigo. intaas kadib wuxuu arkayaa guri dabaqa oo ka hooseeya, kaasoo balakoonkiisu uusan lahayn wax bir ah. taas awgeed haddii uu ku guulaysto inuu dabaqaas tago, waa mid markaa albaabkiisa furan yahay, taasina waxay u fududaanaysaa inuu bannaanka u baxo. si kastaba ha ahaatee si uu gaadho taas, ugu horrayn waa inuu balakoonkan ka jarjaraa markaa biraha. qalabka keliya uu haystana waa gabal yar oo bir ah, laakiin wuxuu isku dayayaa inuu gooyo si walba ay ugu qaadataba. dhowr maalmood ayaa ka soo wareegatay, laakiin weli ma uusan quusan. marka xaaladdu ku adkaatana wuxuu quudanayaa baranbarada, quraanjada iyo sidoo kale shimbiraha. maalmo badan ayuu isku dayay oo uu gubi jiray markaa biraha. ugu dambeyntii wuxuu ku guulaystay inuu jebiyo. Shuuriya wuxuu ka faa'iidaystay fursaddan, isagoo hoos ugu daadegaya biraha dabaqa. markuu ugu dambeyntii gaadho kan aan markaa biraha lahayn, lugihiisu aad ayay u gaaban yihiin inay gaadhaan. wuxuu isticmaalayaa suunka badbaadada, ugu dambeyntiina uu gudaha u gelayaa, wuxuuna soo jiidayaa albaabka isagoo aad u faraxsan markuu furmay. jaranjarada ayuu ka soo baxayaa, ugu dambeyntiina wuxuu indhaha ku qabanayaa waardiyaha. waxa uuna hayaa boqolaal wax oo uu rabo markaas inuu u sheego, laakiin si fudud ayuu markaa uga soconayaa. toddobaad kadib Nuuri ayaa ku soo booqanaysa dhakhtarka. berigii waxay aamintay inuu ka cararay iyada mas'uuliyaddeeda, kadibna iyaduna way iska guursatay. wuxuuna damcay inuu gacanta qabto, balse way ka dhaqaaqday iyadoo og markaas inaysan wada joogi karin. maalmo kadib wuxuu ku soo laabanayaa shaqada, laakiin waxaa niyad jabiyey in asxaabtiisu haba yaraatay aysan dareemin maqnaanshihiisa. maalintaas kadib mar walba maqaaxi uu jeclaa ayuu tagaa oo uu ku raaxaystaa cuntadii uu u xiisay. filimkiina wuxuu ku dhammaanayaa isagoo ku soo laabtay dabaqii oo eegaya markaa birtii uu jebiyey. filimkiina saas ayuu markaa ku dhammaaday. haddii markaad xiisaysid muuqaalada noocan oo kale ah, fadlan janaalka subscribe saaro, sidoo kale muuqaalkan like gare si markaa dad badan uu gaaro. waana kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan. intaan muuqaalka xiga ku kulmayna waxaan idinkaga tegayaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.